xajka sida ay yani ka aaminsan yihiin iyo xaqiiq ahaan xajka sida uu yahay in wax la isaga tilmaamo ayuu mudan yahay. soomaalideennu qaar badan oo ka mida waxay ka aaminsan yihiin intaad wax walba iska samayso oo wax walba iska qasato waxaas oo dembi ah oo aad gashay waxaa kaaga filan xajkun baad tegaysaa. xajka markaad tagtana xadiidkan baa lagu akhrinayaa inta xajka aad joogtid haddii ay xaaskaaga kula socoto maalmaha la xarman yahay looma dhowaado oo waa la iska daynayaa. macsiyo inta xajkaas la joogo oo dembi ahoo muuqdo oo loo jeedana lama gelayo waa la iska ilaalinayaa. qofkii marka xadiidka suu tilmaamaya xajiya man xaja qofkii xajiya falam yarfuf oo xaaskiisa aan xajkiiga intay xarmaanaayeen aan u tegin walam yafsuq aan faasiqnimo samaynin oo wax dembi ah oo daacada ilaahay looga baxo aan samaynin rajaca wuxuu ka soo laabanayaa xajka ka yowmi waladatu ummuhu sidii maalintii hooyadii ay dhashay uu dembi la-aanta u ahaa oo kale ayuu uga soo noqonayaa xajka. bes halkaas xadiidku waa saxiix waa muttafaqun calayhi dadku waa loo akhriyey. laakiin xajku in meesha la tegey oo keliya ma aha waxaa ku xihan tilmaamo. tilmaanta waxaa sii caddaynaya xadiidka nabiga sal lla ly slam uu leeyahay xajka xaj bis muuna ku joojin in la xajiye laga soo noqday ma ah. alxaj oo tilmaamahee leh almabruuru oo baarinimo lagu falay oo baari lagu noqday laysa lahu jazaa ila aljanna abaal kale male in janno qofka la geliye ma ogiye. waa xadiis saxiixa maa sha allahu oo ajir badan xajka inuu ku jiro tilmaamaya. dembiyada marka lagala soo laabanaayo xajka oo laiska soo dhaqaayo oo laga soo noqonaayo sidii maalinka hooyada ay dhashay ma dembiyadoo dhan ba mise dembiyadu way kala duwan yihiin? waad ogsoontihiin oo dembiyadu waxay u kala baxaan laba qaybood. qayb waxay ka dhaxaysaa ilaahay iyo addoonkiisa, qaybna waxay ka dhaxaysaa addoommada ilaahay dhexdooda. dembiyada sidaas u kala baxay ilaahay iyo addoonkiisa wixii ka dhaxeeya ilaahay sifadiisa naxariistaa ku badan dembi dhaafkaa ku badan. wixii addoonkiisa kala dhaxeeya tasaamuxa ilaahay wuu badan yahay. addoommuhu waxay isku sameeyaan ama isdilaan ama isdhacaan ama iscaayaan oo cirdooda ku xadgudbaan waa wax addoommaha ka dhaxeeya oo qof uu qof kale ku khaldamay oo wax ka sameeyey. shuruudaha dembiga lagu dhaafo midka addoonka ilaahay ka dhaxeeya shuruudda uu leeyahay way ka yar tahay shuruudda labada addoon wixii ka dhaxeeya ah oo waxaa badan oo adag addoommaha wixii ka dhaxeeya. hadda innaga soomaalideenna dembiyadu dadka ay gelaayaan waxaa ugu badan dembiyada ay dadku iska gelaayaan. midda ilaahay waxaa ugu horaysa salaada maalan awal maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaa salaaddaa ugu horaysa. hadday salaadu toosto inta kalena way toosaayaan bimacnaa acmaashii wixii ilaahay uu lahaa ilan salaadda ilahay baa inugu leh hadday toosto inta kalena way toos waa wixii ilaahay uu iska leeyahay. ilaahay waa kafuur raxiim tasaamixiisaa badan. taas hadda way inoo toosan tahay masaajidadeenna meel kastoo tagto iyo xilli kastoo la tago masaajiddu way buuxaan oo salaaddii dadka way ku dadaalayaan. waa xaqii ilaahay uu inagu lahaa way fiican tahay aad bayna u qurux badan tahay. taas waa ilahay bay inagala dhaxaysaa. midda dadka ka dhaxaysa oo innaga soomaalida meesha mushkilada inaga haysato ayay tahay midda dadka inagala dhaxaysa. taasaa inoogu daran moog tahay ta ilaahay kaala dhaxaysa adiga ilaahay baa is og hadduu doonana ha kuu qabsado hadduu doonana ha kaa daayo. laakiin midka dadka kaala dhaxaysa seedka yeele. mid maalin waa in sheego malina isbaaro fadhiyo casarka inti lagu soo aaday meesha uu jidgooyada ku samaystay ee lacagta baadda uu dadka kaga qaadayay ku yar buu u dhiibay qoriga wuxuu intaan tukanaya baabuurta iisii celi. casarkii buu tukaday baabuurtii baa saf la geliyo wax dhaqaaqaaya male. salaaddii buu tukaday wuu dhammaystay markaasuu tartiib meeshiis u fadhiistay markaasuu yidhaaye soo fasax darawlayaasha lacagta hala keeno.
lacagtii ururinaya marka salaaddii kadib markay weydiiyeen kuwa iskala kaftami soomali waxay war adiga jidgooyaad joogtaa dadka wad dhacaysaaye haddana casar baan tukanaya maxaad ugu hayso maxaad ka tukanaysa waxba laga aqbali maaye wuxuu leeyahay kuu sheegay wax laga aqbalayn ani dadkan la dagaalsanay maahan ilaahay ma la dagaalsanay markaad mushkiladina haysata waa dad isla dagaalka waxayna haysto waxa dhibkaynu ugu hayana waa isdagaalka dhexdeenna ah ta ilaahay ma ogtahay wuuba tukaday kaas oo waaba kaas wuxuu leeyahay ilaahay isma dagaalsani laakiin wuxuuna ogeyn ilaahay inuu amray dadka in la nabadgeliyo oo ilaahay markuu leeyahay waladiina in aladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu kuwa ilaahay rasuulkiisa dhibaaya ma cid baa ilaahay dhibi karta oo ilaahay dhib u geysan karta maxaa loo leeyahay in aladiina yu'duuna allaha ilaahay bay dhibaayaan ilaahay bay dhibaayaan macnaheedu waxay tahay dadka wanaagsan ee ahlu khayrka ee mu'miniinta ah qofkii dhiba dhibkaas uu mu'minka dhibaayo ayuu ilaahay necab yahay man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi soo ilahay xadiis qudsi kumuna dhihin qofkii qof weligayga ahoo aniga igu xihan oo mu'mina dhiba oo col la noqda anuu dagaal igula jiraa marka dagaalka mu'miniinta lagula jiro ee qof mu'mina la dhibaayo macnaheeda ma aha ilaahay waxba maanan ka samaynina dadkan isdagaalsannahay isdagaalsanaanta dadka aad dhibaysid ayuuna ilaahay ogolayn oo ilaahay dadka wuxuu u abuuray oo kitaabka ugu soo dejiyey inay dadku toosnaadaan oo qof walba wixii asaga uu leeyahay uu ku ekaado dadkan aan la dulminin marka xajka dembiga lagu dhaafaayo waa dembiga addoonka iyo ilaahay ka dhexeeya laakiin qofa intuu xajka intuusan aadin ka hor muslimiinta dhibaaya xoolahooda qaadanaya suu doona ka yeelaaya wuxuu leeyahay halkaa iisii joogto waan soo xajinayaa xajkii buu tegaayaa markuu soo laabanaayo gadaal intuu isu muraajiceeyo waxaan uu samaynaayo inay dhib yihiin oo muslimku uusan raalli ka ahayn oo dembi ay tahay ragannimo raadi iyo dad iska celi unbuu u wadaa ma ogyahay haddii kitaabka loo bandhigo afcaasha uu samaynayo inaysan saxayn wuu ogyahay laakiin dad bay wax kala dhexeeyaan oo soomaaliya hore uga maamaaday rag iska celi iyo rabbi ka cabsa meel ma wada gasho alla ka cabsigay meel iska dhigaayaan xajka intuu ku maqan yahu ilahay ka soo cabsanaa marka ha ka soo cabsadee soo noqoshada uu soo noqonaayo qof ma yahay ka toobad keenay wixii uu qabla alxaj xajkii ka hor ilaahayo wixii aan samayn jiray carafaan soo istaagay adna waad ii og tahay adna waan is ogahay wixii xumaa aan samaynayay halkan aan kaga toobad keenay oon dhigay ilaahu markhaati ka ahow wixii dadku ay igu lahaayeen waan u celinayaa icafiyana waan dhahayaa dhib dambena u geysan maayo kacbadaada agteedaana ballan ku galay masaama soo dhahayaa maya dharca intuu kuu gashto halkaa uu kuu joogo oo wuxuu leeyahay duro facebook kala socdaa markii wax laga sheegayo aan idiin soo noqdo xaguba ka soo dhaaranayaa oo maxaad nooga soo noqod naga rabta soo adigii toobad keenay ma aha ee yacni ka soo qabaystay maa dembiga waxay un ka dhigeen soo hadda maalan cajal markaad dhegaysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo maxaa la bows soo looma taabto dembigunbu bows u yar istaagsiye bes bows luu dhahay bes inta maalmaha xaj kala joogu bows u yahay markuu ka soo laabtana meeshii muu ku dhufanay bowskii uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajkii muxuu taray alxaju lmabruur ma aha kaas marka waxaa waaye dadka ay xajka in dembigooda la dhaafo raba dembiga iska soo dhaqaaya waxaad ogaataan dembiga aad iska dhaqaysaan oo laydinka dhaafaayo waa dembiga ilaahay idinkala dhexeeya amaa dembiga ummadda idinkala dhexeeya xaj laguma dhaafo waxaa lagu dhaafaa qofkii dembigaas laga galay oo ama wixiisa loo celiyo ama cafis la weydiisto ama raalliligan la weydiisto ka ayaa lagu dhaafaya qofka ugu fadliga badan shahiidkaa la yidhaahdaa haddii ilaahay dartii uu shahiido xaafadda markuu ka soo tegaayana lacag uu qof ka soo qaaday oo dayna uu yidhi markaan soo noqdo jihaadka ka soo noqdaan ku siin doonaa ay ku qoran tahay oo asagoon soo noqoninba uu shahiidoo dhinto lacagtii daynta ahayd ilaahay ka dhaafi u maayo dembiyadii kale oo ilaahay kala dhexeeyey yukfaru lishahiidi kula dembin ila dayn dembi kas waa loo dhaafaya laakiin daynta loo dhaafi maayo daynta maxaa loogu dhaafi waayey daynta dad baa iska leh qofkii iska lahaa un baa dhaafi kara marka inaysaa inoogu kala caddaato xajkuuna noqonin wax walba intaan kharibnaan ordaynaa oon soo qabaysana meesha meel soo qabaysanayo maaha meesha waa meel ballan lagu soo gelaayo ballan labayk allaahuma labayk maxaa laga wadaa labayka macnaheed waxay tahay ilaahayow
waan ku ajiibay waan ku ogolaaday wax kastood ii dirtay haye ayaan ku leeyahay wixii aad iga celisay oo ka joogi dhahdana waayahay waan ka joogay labayka waan ku ajiibay ilaahayow laakiin haddii aan ficil ahaan loo muujinaynin